هو السؤال هذا waxaad isweydiinaysaa ma jecesha ilaahay haa waan jeclahay soo ilaahay irsaaqa ma aha soo rabbiga ilaasha ma aha soo ilaahayga intaa ila ekeysii ma aha soo ilaahayga in naxariista ma raba ma aha sideena u jecleen nacam su-aashaad hadda jawaabtaad niyaddaada ku soo dhacdo waa middaas laakiin ku wareejinaya su-aal kalaan ka dhigaya inaad ilaahay raalli ka tahay macnaheedu waa maxay macnaheedu waxaa waa inaad ilaahay raalli ka noqoto subxaanahu wa tacaala inaad umuurahaadoo dhan ilaahay u dhiibato inaad ilaahay ku kalsoonaato inaad wax walbo noloshaada ka midoo dhanba aad ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dambeyso raalli ku noqoto oo niyaddaada ku qanacsanaato tan labaadoo ah inaad ku qanacdo wax kastoo ilaahay kuu qeybiyey wax kastoo ilaahay ku siiyey wuxuu ilaahay kuu dooray inaad ku qanacdid baa la rabaa inaad ilaahay raalli ka tahay macnaheedu waxaa waaye imtixaan walboo kula soo gudboonaado dhib walboo aragtaa ilaahay kuma tusee inaad ilaahay mar walbaahi aad sabar muujido oo aad khayr ka malaysato weeyaan waana inaadan ilaa khalqiga u cabaadin markii madaxa wax yar ku xanuuna inaad maanta bannaan ku baxdo warbaxa balaaya u dhacday tana igu dhacday intaa ka baxay waxaasoo dhanna inaadan dhihin yacni qof mar walbaba ku xiran ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay ka awood badan yahay waxaadan adiga ogeen oodan tabar u haynin baa ilaah ogaya subxaanahu wa tacaala inaad mar walba umuurahaadoo dhan aad ilaahay u dhiibato subxaanahu wa tacaala wixii uu kuu qeybiyana aad ku qanacdo waayo khalqiga aad ku cabaadaahi waxna ma kuu soo kordhinayaan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waclam ana alummata low ijtamacat calaa an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka ilaa bishayin qad kataba allaahu lak waxaad ogaataa haddii ummaddanan ay kuu kulmaan inay ku anfacaan wax ku taraan faa'iido kuu sameeyaan oonan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxba faa'iidadaas uusan ilaah kuu qorin nafcigaas waxba kuma qaban karaan hadday sidoo kale hadday damcaan inay ku dhibaan oo ku rafaadiyaanne oosan ilaahay waxaas kuu qorinne waxna ma kaa qaadi karaan idan soo ma aragti tabarta aadanaha mar walba ilaahay ku kalsoonow ilaahay ku xirnow niyaddaadana khayr u sheeg wax walbo maanta ku haystaa iyo si walboo dareemaysid khayr bay kuu tahay ilaahay baa kuu dooray ku qanac waayo mar walba waxaana loo jeedayay arrin yar haddaan damacno inaan qabanno inaanu istikhaaro tukanno waa maxay istikhaarada ilaahayow aan wax ma doori karo ilaahu adi ii door ilaahu aniga wax ma fahmi karo ilaahay wax ifaansii ilaahay awood ma leh ilaahu wax ma qaban kari adi mar walba waxaa loo baahan inaanu ceenkaas sidaasaan u dhaqanno insha allahu tacaala والله سبحانه وتعالى